السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا كنالكينا موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay high income skills ama xirfadaha waqti xaadirkan ugu dakhliga fiican. haddii aan ku bilowno xirfadda koowaad maanta aan ku bilaabayno mawduuceena waxay ku saabsan tahay affiliate marketing ama waxa loo yaqaana affiliate marketing. haddaba waa maxay affiliate marketing? affiliate marketing waxa weeyaan waa marketing aad u sameynayso ama waa ganacsi kaasi oo aad ganacsiga aad sameynayso aad shirkad kale u sameynayso, kuwaasoo ay tahay inaad barato aad naftaada ku khasabto ugu yaraan 1 iyo 2 3 inaad ka baran karto xirfadahan. haddii aan u gudagalno mawduuc saabsan xirfadaha ugu lacagta badan ama ugu dakhliga fiican passive income ka fiican leh, waa xirfadda koowaad waxay noqon doontaa affiliate marketing. affiliate marketing wax kale maaha, waxa weeyaan affiliate marketing in aad iibiso productii oo aad productgaasi adigoo aanad lahayn laakiin affiliate marketing lagu siiyey inaad macnaha productgaasi aad soo iibinayso ayaad commission ku leedahay. productgan maaha mid aad suuqa geynayso offline ah, waa mid online ah oo aad ku iibinayso. tusaale ahaan haddii aan soo dhaweyno waxaad haddaba qaabkiiba loo fudud ee loo baran karaa affiliate marketing. affiliate marketing waxaad ku baran kartaa dhowr siyaabood oo aad iyo aad u kala duwan. first one, affiliate marketing waxaad u baahan tahay inaad barato aad ka bilowdo meesha waxa loo yaqaano social media marketing si aad u fahanto affiliate marketing business. affiliate marketing haddaba sidee loo baran karaa affiliate marketing bal soo dii. affiliate marketing waxaad ku baran kartaa in muddo ah ugu yaraan 5 months 6 months aad ku baran kartaa. affiliate marketing waa xirfadaha ugu passive income ka fiican waqti xaadirkan noolnahay ama 2024 kan. affiliate marketing waa xirfadaha ugu fiican ee la barto waqti xaadirkan. affiliate marketing waxaad ku baran kartaa kaliya hadda waxaa jirta koorsaan wadno affiliate marketing oo online business ku saabsan. wayna jiraan koorsooyin badan oo aad ka helayso dhamaan YouTube waad ka heli kartaa iyagoo baa English ku baxaya. inta badan hindi baa sharaxda affiliate marketing oo aad bay marka ugu fiican iyagu, laakiin waad ka helaysaa iyadoo English sax ah affiliate marketing ku saabsan. mawduuceena labaad ama cashirkeena xirfadeena xigta waxa weeyaan content creating ama content creation. creator macnaheedu noqoto qof hal abuur leh wax soo create garaya oo dadka marka wax la wadaagaya. macnaheedu hal abuur inaad wax cusub la timaado oo shay cusub aad soo ikhtiraacdo. ergan creator macnaheedu waa waxnihii wax sameyn, waa shay cusub aad sameynaysaa oo ayna dad hore u sameynin, ama haddii lagu sameeyeyna aad wax ka bedelayso shaygaas oo dadka ku cusub waxtarna u leh adna ku anfacayo oo dee wax faa'iido ku leh. markaad mawduuca soo sameyso oo aad ka soo hadasho ama hal abuurnimada ama wax laga yaabo wax shay aad u dhalatay oo kale ama dabiici aad ku ah. tusaale ahaan haddaan soo qaadano tusaale inta badan dadku tusaale ayay MCD wax ku fahmaan. waxaa jira tusaale ahaan waxa weeyaan abwaanka oo kale wuxuu dhashay maaha waxa uu iska keenay waa wuxuu dhashay, marka waa hibo uu dhashay abwaanku abwaannimada waana hal abuur. macnaha qof hal abuur weeyaan oo maansadii curey gabayga curinaya heesii sameynaya markaas u dhashay. saa daraadeed waxaa laga rabaa markaas creator macnaheedu inaad wax sameyso oo aad wax cusub soo sameyso. markaasi waxaasi ama ha cusbaado ama ayuuna cusbaan, laakiin waa inaad shay sameyso aad isku daydo. taas ayaa loo yaqaanaa waxa weeyaan creator. okay, xirfaddan hadda waxay u baahan tahay creator-nimadu inaad ku bixiso waqti aad iyo aad u fara badan oo waqti badan aad siiso si aad uga gaadho waxa weeyaan meesha aad doonayso. ugu dakhliga fiicani waa kuwan dhammaantood kaga muuqda. affiliate marketing aan soo sharaxnay oo aan waxa weeyaan si fiican daawaha u saarnay ama dabka u soo saarnay affiliate marketing iyo waxay tahayba affiliate marketing iyo dhammaan content creation-ka aan soo sharaxnay. xirfaddeena ku xigta waxa la yaqaanaa video editing. video editing video editing maanta waa xirfadaha kuwa ugu fiican ayuu kamid yahay
Allahu musta'an, one of best skills that can change your life. يعني xirfadaha ugu fiican waxa weeyaan maanta business kastaaba uu baahan yahay waa video editing. haddii aan idhaahno maanta aan sharaxna video editing waxa weeyaan waxay qaadanaysaa waqti ama muuqaalka ayana la dheeraanaya, laakiin wax badan baan ka taaban doonaa video editing iyo waxay tahayba. dadka intooda badan ma fahansano waxay tahay video editing. Video editingku maanta wuxuu noqday xirfadaha kuwa ugu waxa weeyaan high income skills ayuu noqday. Video editingku maanta wuxuu noqday high income skills. waa mid ka mid ah xirfadaha ugu lacagta fiican, ugu dakhliga fiican waqti xaadirkan. Video editingku intaan u gudagelin qaabka loo barto video editing, balan sharaxaad kooban iyo mid emotion iyo mid balan ka bixin sharaxaad dheer video editing iyo wuxuu yahay. Video editingku waa barashada samaynta muuqaalada kuwaas oo sameynayso kambaniyo, shirkado private iyo dawlad dhammaan iyo ganacsiyo, kuwa private iyo kuwa aan private ahaynba, kuwa specialistiya iyo kuwa aan special ahayn iyo dhammaan xarumo caafimaad. maanta business kasta wuxuu u baahan yahay video editing in muuqaalo loo sameeyo. businesska aan lahayn video editing waa business aad iyo aad u hooseeya, waa business markaasi aan gaari karin businessyada video editingka loo sameeyo ama businessyada marketingka. sidoo kale video editing maanta waxaa loo isticmaalaa marketing, waa suuqgeyn. wuxuu suuqgeynayaa ganacsigaagii halkii Allahu musta'an berigi hore ay ka ahayd in ganacsigii waxa weeyaan TV laga soo daayo oo TV laga xaysiiyo oo TV-ga maanta kadib laga sheego meherada kay ku taalo iyo waxay iibiso iyo alaabada nooca iibiso iyo in microphone waxay lagu baafiyo magaalada dhexdeeda la dhado meheradaas ay leeyahay ganacsiga fiican haysa. yacni waxay traditional marketing bay ahayd, xayisiin hooseysa bay ahayd. laakiin maanta video editing ama editingku ama muuqaal samayntu waa xirfadaha ugu fiican. sidoo kale waa mid ka mid ah xirfadaha marketingka. xirfadaha marketingka oo ay dhammaan meheraduhu ama dhammaan shirkaduhu ay u isticmaalaan intooda u badan meheradooga. yacni video editingkan wuxuu ka caawinayaa marketing ahaan oo kale oo ay u isticmaalayaan oo waxay ku suuq geynayaan alaabtii ama alaabtoodii. waad aragteen inta badan Facebook oo kale waxay siinayo dhammaan inta badan ganacsiyada waaweyn waxa weeyaan our country. sidoo kale video editing maanta ma jiro ganacsi ka maarmi kara edit ama video editing ama muuqaal samaynta, balse uu u baahan yahay in ganacsiga uu ka muuqaal badan yahay ama ka marketing badan yahay, ayuu ka socod badan yahay, ayuu ka dakhli badan yahay, ayuu ka profit iyo faa'iido badan yahay ganacsiyada kale ee aan lahayn video editingka. intayda waa isla fahanay. haddaba qaabkii ayaa loo baran karaa video editing? maxaa kaa caawin karaa? qalabadii baad u baahan tahay inaad barato video editing. Video editing waxaad ku baran kartaa sidan ayaad u baran kartaa video editing. Video editing waxaad ku baran kartaa inaad qaadato inaad leedahay laptop. sidoo kale waxyaalaha kaa caawinaya yacni waa methodska, waa shayada kaa caawinaya barta video editing. waxaa ka mid ah laptop ama HP ama nooc doona ha ahaado, laakiin laptop inaad haysato. sidoo kale imika muhiim maaha inaad laptop haysato. waxaa sidoo kale dad hayso mobile iPhone ah ama smartphones loo yaqaano, iyadna way kaa caawinaysaa inaad barato video editing. ama haddii uu hamiga u yahay inaad meel fiican ka gaadho waxaad u baahan tahay laptop, laakiin qasab ma aha inaad leedahay laptop. waxaad ku baran kartaa mobilkaaga. sidoo kale haddaba qaabkii ayaad u baran karaa video editing? kuwaas waa methodska lagaaga baahan yahay inaad haysato ama inaad leedahay si aad u barato video editing oo aad si fiican u qaadato. video editing maanta waxaad ka baran kartaa meelo fara badan. waxaa kuwa YouTube-ka ayaad ka baran kartaa tutorials muuqaal ayaa jira oo video editing walow ay jiraan kuwa previous ah, because day to day buu isku bedelay maanta adduunku. waxaad u baahan tahay haddii aad shalay video editing baratay inaad maanta dib u barato, sababtoo ah waxyaalo badan oo aan shalay aad u isticmaali jirtay muuqaaladaada ayaanad maanta u isticmaalayn. oo waxaa soo baxaya waxa weeyaan software ka casrisan
kii aad hore u isticmaalaysay. sidaas daraaddeed video editingku waxaa lagu tilmaamaa xirfadaha isku bedela day to day isku bedelaya oo ay kusoo biirayaan waxa weeyaan more things ama more items oo ka bedelaya aqoontaadii hore aad u lahayd video editingka. sidoo kale waxaa jira koorsooyin tutorials oo English ah oo kuwaas aad ka helayso YouTube-ka laakiin by English ku baxaya. qaarkood waxay soconayaan muddo 4 hours 7 hours laakiin waxaad ku baran kartaa inaad yaryaraysato oo aad maalinkiiba 20 daqiiqo badh aad dhegeysato. haddii aan ugu dhufano bishii inaad badh dhegeysato waa 90 waxa weeyaan waxaad siinaysaa 90 markaasi 90kii 3 bilood ayaad ku baran kartaa oo 90 maalmood ah haddii aad siiso min badh video editingka. maalintii haddii aad badh u fadhiisato video editing ama saacad barkeed waxaad ka gaari kartaa meel ama guul aad wanaagsan video editing kaasi oo aad ku xaqiijin karto waxa weeyaan meelaha aad ka rabto inaad ka gaadho ama hadafkaaga ama waxa weeyaan yoolka aad ka leedahay gaaritaanka muuqaal samaynta iyo inaad noqoto professional iyo maaha inaad samayn karto muuqaalada ugu muhiimsan waqti xaadirkan ama aad ku raadsan karto waxa weeyaan nolol maalmeedkaaga aad ku diyaarsan karto kana caawin karta inaad barato video editingka. waa inaad u samayso waxa weeyaan time ama waqti kaasi oo aad gelinayso muuqaal samaynta ama video editingka. waqtigaas ha ahaado waqti waxa weeyaan ama saacad waqti hore ku bilow horta waqti hore waxaad ku bilaabaysaa badh ilaa waxa weeyaan 20 daqiiqo ilaa 25 kabacdina waxaad gaadhsiinaysaa ilaa iyo waxa weeyaan saacad. haddii aad ku wado muddo 3 months ama 3 bilood ayaa ah inta ugu fiican ee aad ka noqon karto waxa weeyaan middle professional. saad u noqoto waxaad u baahan tahay inaad qaadato courses intaas kasii dheeraad traditionalka si aad u noqoto professional person. muuqaalkan maanta intaas ku saabsan yahay. haddii aad muuqaalka fadlan wax ka faa'iiday subscribe nagu soo biir. kanaalka waxaan uga hadalnaa waxa weeyaan online business iyo waxa weeyaan waxa weeyaan high income skills ayaan uga hadalnaa. sidoo kale cryptocurrency muuqaalka ayaan uga hadalnaa kanaalkiina wax badan baad ka faa'iidi doontaa. nagu soo biir fadlan.